waa Rajiv Hari Umbhatia waxa uu dhashay 9 September 1967 waxaa loo yaqaanaa Akshay Kumar. Naystiisu waa Mag-Aki, waa Hindi haysta dhalashada Canada, jilaa soo saare farshaxan dagaal iyo shakhsiyaad television. waxa uuna shirkadda buluudka ku jiray in ka badan 30 sano. Akshay Kumar wuxuu ka soo muuqday in ka badan 100 film, wuxuuna ku guuleystay abaalmarino badan ee ku jiraan abaalmarinta filimka qaranka ee abaalmarinta ugu fiican ee uu ku sameeyay Rastam 2016 iyo 2 abaalmarino film fair ee ajnabi 2001 iyo Gram Masala 2005. sanadkii 2008 jaamacadda Windsor waxay shahaado sharaf guddoonsiisay Kumar si uu u aqoonsato kaalintiisii uu ku lahaa shineemooyinka India. sanadkii 2009 waxaa abaalmarinta Padma Shri siisay dowladda India. sanadkii 2011 abaalmarinta Aasiya ayaa lagu sharfay Kumar guushii uu ka gaaray filimada. Akshay Kumar waxa uu ka mid ahaa atoorayaasha ugu guulaha badan abid ee isagoona xiddigani 113 film 52 ka mid ah ganacsigooda guuleysteen. wuxuuna ahaa jilaagii ugu horeeyay ee Bollywood-ka ah filimada nolosha ka hadla ka gudbeen 20 bilyan oo lacagta Hindiya u dhiganta 280 milyan oo lacagta Mareykanka. wuxuu isu taagay inuu noqdo mid ka mid ah jiliyaasha caanka ee filimada Hindiya. markuu bilaabay jilitaanka sanadkii 1990 waxa uu ugu horeen ku jilay filimada ficil, wuxuuna inta badan ku soo bandhigi jiray filimooyinkiisa ficilada qatarta badan, taasoo uu ku kasbaday in loogu yeero Indian Jackie Caan ama Jackie Caan-ka Hindiya. markii dambe Kumar sidoo kale wuxuu caan ku noqday riwaayadiisa, doorkiisa jacayl iyo majaajilada. marka laga reebo filimada Kumar, sanadkii 2009 wuxuu aasaastay shirkadda wax soo saarka ee Hari Entertainment iyo shirkadda wax soo saarka ee Rising Cloud Pictures. sanadkii 2014 Kumar wuxuu bilaabay barnaamijka dhabta ah ee TV-yada ka baxa reality TV show Dare to Dance. waxa kale uu leeyahay kooxda Qasla Warriors ee kabadili ka tirsan. laga soo bilaabo sanadkii 2019 Kumar waxa uu ku jiray liiska Forbes ee ugu mushaarka badan adduunka, isagana waxa uu ka mid yahay kuwa ugu mushaarka badan shirkadda Bollywood-ka.